A man from a small town, a man who failed, a man who was no longer young. 5 sano ayuu jiray markii aabihiis geeriyooday. 16 sano markii uu gaarayna waxa uu ka tagay waxbarashada. 17 jir markii da'diisu ahayd waxa laga eriyay 4 shaqo. sanad kadibna wuu guursaday. sanadkiisii 19aad waxa uu noqday aabe. 20 markii uu gaaray ayay xaaskiisa ka carootay iyadoo horay u sii kahaysatay gabadha kaliya ee uu dhalay. kadib wuxuu shaqo yar ka helay maqaayad isagoo hawshiisu markii hore ahayd weeldhaqista, markii dambese u dallacay cunto kariye. nasiib darro shaqadaasi waqti dheer ma sii joogin oo uu ku fashilmay. wuxuu isku dayay inuu dib ula midoobo xaaskiisa iyo gabadhiisa. marar badan ayuu ku guul daraystay qorshahaas, inkastoo ugu dambeyntii uu ku qanciyay xaaskiisa in ay u soo noqoto. dabadeed waxa uu bilaabay inuu ku shaqaysto darawalnimo, isagoo muddo kooban noqday darawal taxi. hase yeeshee taasina ma noqon mid uu ka miro keeno. ciidamada ayuu ku biiray. muddo gaaban kadib waa laga eriyay ciidanka. kadib waxa uu dalbaday inuu barto qaanuunka. jaamacadduse way diiday inay aqbasho codsigiisa. markaad hindiisa qorshayso, halkaad geediga furayso, si aad hirashada u dhabayso. hawshaada dadaal ku biirso. hawshaada dadaal ku biirso. ugu dambeyntii waxa uu u wareegay dhanka suuqgeynta iyo caymiska. shaqadaasina sidii caadada u ahayd wuu ku fashilmay. markii uu gaaray da'da 65 sano ee uu howlgab noqday, waxa ay dawladdu siisay lacag yar oo la siiyo dadka shaqada ka fariista. saamiga uu helay xilligaas waxa uu ahaa $150. maalinta uu lacagta helay maalintii ku xigtay waxa uu go'aansaday inuu isdilo, maadaama uu aaminsanaa inuu ku guul daraystay nolosha kana gaabiyay xaqiijinta yoolashii uu hiigsanayay. waxa uu hoos fariistay geed ku dhow gurigiisa, isagoo gacanta ku haysta warqad iyo qalin si uu u qoro dardaarankiisa. markii uu warqadda iyo qalinkiisa saaray, waxa uu isweydiiyey su'aalo badan. waxa uuna garowsaday inay jiraan waxyaabo badan oo uu ku guul daraystay, hase yeeshee ay u dhiman yihiin waxyaabo kale oo uu ka guul gaari karo. nafyahay hadimada ka dhowrso, guushana marinkeeda haybso. tallaabada halkaad dhigayso, horteeda balaad u fiirso. tallaabada halkaad dhigayso, horteeda balaad u fiirso. rajada hubaalka doorso, runtana hilkeeda beegso. hadaad hadaliga maqlayso. wuxuu aaminsanaa inuu leeyahay xirfad sare oo dhanka cunto karinta ah. go'aan degdeg ah ayuu ku qaatay. lacagtii uu haystay ee ahayd $150 waxa uu ka isticmaalay $87 oo ka mid ah. waxa uu tagay suuqa si uu u soo gato xoogaa qudaar ah iyo hilib digaag. maalintaas wixii ka dambeeyay waxa uu bilaabay ka ganacsiga hilibka digaaga ee shiilan. wuxuu hilibka ku diyaarin jiray gurigiisa, dabadeedna waxa uu ku soo wareejin jiray jidadka tuulada North Cobin ee gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka. muddo kooban kadib ganacsigiisii yaraa horumar weyn ayuu sameeyay. macaamiil badanna way ku soo xirmeen. markii uu gaaray da'da 88 jirkana, xilligaas oo ku beegnayd 23 sano kadib markii uu shaqadaas bilaabay, waxa uu ahaa hantiile dunida oo dhan caanka ah. ninkaasi waa Harlan Sanders. 1980 ilaa 1990. shirkadii uu aasaasay oo hadda lagu magacaabo Kentucky Fried Chicken, loona soo gaabiyo KFC, waxa hoos taga 20,000 oo maqaayadood oo ku yaala 123 dal oo caalamka ah, taas oo qiimaha xilligan ay ku fadhido uu gaarayo adduun lacageed oo dhan $23 bilyan. waana shirkadda labaad ee ugu weyn dunida kuwa ka ganacsada maqaayadaha iibiya cuntada fudud.